السلام عليكم صاحب بيال سو دوادا ومقال كله يو برشادة لغة إنجليشكا كسو دوادا كنالك محمد بدل سبسكرايب صار كنالكا سيدو كلنا مقال كلايك إنو صار سياد أبرتا لغة إنجليشكا اسكو داينات كنالكا لسعوتو آديات باو محسنتهاي عشر كيناني مانتا وح وكساب سنيهاي او إنو مركاسي اسلا قادا ديگ دونا او إنو اسلا بران دونا erayada loo isticmaalo siyaasadda marka la joogo siyaasadda waxa jiro erayo gooniya oo la isticmaalo ama markaasi la adeegsado erayadaas ayaynu maanta isla baran doonaa waxa laga yaabaa marka aad daawanayso muuqaalada siyaasadda ka sheekeynaya ama aad akhrinayso artikalada siyaasadda ku saabsan inaad markaasi fahmi weydo ama marka ay kugu adkaato inaad fahamto wax laga hadlayo doo maanta haddii aad cashirkan dhamaysato waxaad fahmi doontaa eray kasta oo markaas siyaasadda loo isticmaalo waxba yaan hadal badan kugu daalinin eraygeena koobaad waa erayga loo yaqaano democracy erayga democracy waxa loo isticmaalaa ama English ahaan waxa lagu micnayaa a system of government waa nidaam dawladeed where people kaasi oo dadku vote for their leaders ay ku soo doortaan ama ay markaasi ku codeeyaan dadka iyaga markaa hogaaminaya ayaa waxa la yiraahdaa dimuqraadi nidaamka dawladeed ee markaasi u ogolaanaya in muwaadiniintu ay ku soo doortaan hogaamiyaashooda ayaa waxa la yiraahdaa democracy sentence hadaynu gelino ama aynu markaa jumlad ka sameeyno many countries wadamo badan around the world oo caalamka ah ayaa caalamka yaani ka tirsan have adopted democracy ayaa waxa ay markaas dhaqan galiyeen dimuqraadiyadda ama waxa ay ku dhaqmaan dimuqraadiyadda Soomaali ahaan hadaynu markaasi aynu ka dhigno Soomaali ahaan waxay noqonaysaa democracy waa democracy Soomaali ahaan democracy ama dimuqraadiyad baynu ugu dhawaaqnaa markaynu eray yaani Soomaali ahaan ka dhigno erayga labaad waa election waa doorasho the process waa nidaamka where citizens ay markaasi muwaadiniintu choose their leaders by voting ay ku soo doortaan hogaamiyaashooda ama dadka hogaaminaya iyagoo markaasi codeynaya sentence hadaynu gelino ama jumlad hadaynu gelino the election doorashadu will be held waxa la qaban doonaa ama waxay noqon doontaa next month bisha dambe ayay noqon doontaa markaasi doorashadu noqon doontaa the election will be held next month doorashadu bisha dambe ayay noqon doontaa election waa doorasho Soomaali ahaan doorasho habka dadku ay codkooda u soo xushaan hogaamiyaashooda weeyaan doorashadu erayga saddexaad government waa dawlad the group of people waa kooxdada who make decisions for a country waa nidaamka marka ama waa kooxda markaasi samaysa wadan go'aanadiisa ama go'aanada wadankaasi uu leeyahay gaadha ayaa waxa la yiraahdaa government sentence hadaan gelino waxaan oran karnaa the government dawladdu passed a new law about education the government dawladdu passed a new law about education dawladdu waxa ay soo saartay ama waxa ay markaasi gudbisay oo baarlamaanka hor keentay sharci markaa ka saabsan sharci cusub oo ku saabsan waxbarashada education waa waxbarasho lawna waa sharci passed na waa gudbin ama markaasi markaa qofku markuu gudbo wixii la gudbiyo ayaa waxa la yiraahdaa passed opposition eraygeena afraad waa mucaarad a political party waa xisbi siyaasadeed that challenges kuwaas oo la tartama the ruling government xukunka markaa qolyaha haya kuwa la tartamaya waxa la yiraahdaa siyaasiyiinta markaa mucaaradka ayaa la yiraahdaa hadaynu saaxiibayaal sentence gelino ama jumlad gelino waxaan oran karnaa the opposition mucaaradku criticized waxa ay dhaliileen waxa ay mucaaradeen the new taxi policy nidaamka markaasi canshuurta lagu qaadayo ee cusub ayaa markaasi ayay dhaliileen mucaaradku waxay dhaliileen ama xisbiga mucaaradku waxa uu ka soo horjeestay markaasi go'aanada lagu canshuurayo sharciyada cusub ee canshuurta laga soo saaray ayay ka soo horjeesteen the opposition mucaaradku criticized waxa ay dhaliileen the new taxi policy systemka cusub ama siyaasadda cusub ee canshuuraha markaasi lagu qaadayo eraygeena shanaad waa parliament waxa laga yaabaa inaad maqasho baarlamaan erayga baarlamaan waa eray English parliament waxa la dhahaa ama baarlamaan soo English ahaan waxa lagu micnayaa the main law making body in a country waa markaasi systemka ugu muhiimsan ee wadan
markaasi hogaamiya ama sharciyad hay'adda sharciyeed ee ugu sareysa ee wadan hogaamisa ayaa la yiraahdaa baarlamaan ayaa la yiraahdaa waan yaani nimanka sharciga dajiye weeyaan ilaahay baa sharci dajiye ereyga markaasi hadaynu sentence gelino ama jumlad gelino waxaan oran karnaa the baarlamaanku approved the budget yesterday baarlamaanku waxay shalay ansixiyeen budgetkii ama yaani dakhliga wadanka sanadkaas uu ku shaqeyn lahaa ayaa la yiraahdaa budget the baarlamaanku approved waxa ansixiyeen the budget yesterday budgetkii ama dhaqaalihii wadanka ayay shalay ansixiyeen baarlamaan waa meesha sharciga lagu sameeyo ee dalka ayaa la yiraahdaa baarlamaan the main law making body in a country saas ayay markaasi ku micnayeen English ahaan ereygeena lixaad waa policy ereygeena lixaad police ma haya waa policy ereygeena lixaad policy waa maxay waa markaasi siyaasad policy waa siyaasad a plan or rule made by a government or organization waa plan waa qorshe or rule ama sharci made by ay sameeyaan a government dawlad ay sameeyso or organization ama xisbi koox ay sameeyso ayaa waxa la yiraahdaa markaasi policy ayaa la yiraahdaa policy hadaynu markaa sentence gelino ama aynu jumlad gelino waxaan oran karaa the new healthy policy will be healthy poor families the new healthy policy will be healthy poor families siyaasadda cusub ee markaasi ku saabsan caafimaadka will help waxay caawin doontaa poor families familiada markaasi baahan ama familiada faqiirka ay markaasi caawin doonaan yaani siyaasad waxa la yiraahdaa wax kasta oo qorshe markaasi laga soo saaro ama qorshe kasta oo markaa ay sameeyaan dawladuhu ama kooxaha markaasi abaabulan ama gooniga wax kasta oo yihiinba ayaa markaa waxa la yiraahdaa policy siyaasad saaxiibayaal ereygeena toddobaad waxa uu noqonayaa corruption waa maxay waa wax isdabamarin corruption ama hadaynu Soomaali ahaan ka dhigno wuxuu noqonayaa musuqmaasuq waa wax isdabamarin ama musuqmaasuq hadaynu markaa ereyga waxa lagu micneeyay English ahaan aynu fiirino waxa Englishku ku micneeyaan dishonesty or illegal behavior by officials waa markaasi dhaqan sharci darra oo ay mas'uuliyiintu ku dhaqmaan yaani si sharci darra wax isdabamarin oo hantida shacabka la dhacaya oo markaas ay ku dhaqmaan hogaamiyaasha ayaa waxa la yiraahdaa corruption dishonesty waa daacad ahaansho la'aan ama yaani khaa'inimo or illegal behavior ama yaani dabeecad wax isdabamarina khaa'inimo sharci darra by officials ay ku dhaqmaan hogaamiyaasha markaasi dadka xafiisyada jooga ayaa la yiraahdaa officials sentence hadaynu gelino ama jumlad aynu gelino waxaan oran karnaa corruption is big problem in many countries waxa loo yaqaan corruptionka waa big problem ama waa dhibaato weyn oo markaasi haysata wadamo badan corruption is big problem in many countries corruptionku ama musuqmaasuqu waa dhibaato wadamo badan haysata ama wadamo badan ka jirta Soomaalihan waxaan oran musuqmaasuq waa dhaqan sharci darra oo markaasi mas'uuliyiintu ay ku dhaqmaan saaxiibayaal ereygeena sideedaad wuxuu noqonayaa constitution si fiican ereyga u dhawaaq constitution Soomaalihan wuxuu noqonayaa dastuur constitution Soomaalihan wuxuu noqonayaa dastuur haddii aynu markaa eegno wax English lagu micneeyo waxay ku micneeyaan the highest law that explains how country is governed yaani highest law bay dhahan sharciga ugu sareeya that explains kaasoo sharaxaya how a country is governed sida wadan loo maamulo sharciga ugu sareeya ee markaasi go'aaminaya sida wadan loo maamulo ayaa waxa la yiraahdaa constitution ama dastuur hadaynu markaa sentence gelino waxaanu oran karnaa the constitution guarantees freedom of speech yaani dastuurku wuxuu ogolaanayaa freedom of speech ama xorriyadda hadalka inta badan wadamada dimuqraadiga isku sheega yaani waxay yiraahdaan freedom of speech ka jirta oo markaa dastuurku ogol yahay inay muwaadiniintu waxay rabaan cabiri karaan oo markaasi waxay doonaan ay xor u yihiin the constitution guarantees yaani dastuurku waxa uu ogolaanayaa freedom of speech xorriyadda hadalka sharciga ugu sareeya ee dalka haga ayaa waxa la yiraahdaa constitution English ahaan ereygeena sagaalaad waxa uu noqonayaa campaign organization effort
to win support for a candidate or cause. waxa weeye ole qorshaysan oo lagu kasbado taageerada dalka ayaa waxa la yiraahdaa ayaa waxa la yiraahdaa campaign. waa yani ole qorshaysan oo markaas la rabo in lagu kasbado dalka dadka yani u dhashay si markaa cod looga helo ayaa waxa la yiraahdaa campaign ama ole. campaign waa ole. ereyga tobnaad wuxuu noqonayaa diplomacy. waxaa laga yaabaa inaad maqasho hebel waa diplomacy ama diblomaasiyiin ka socda wadan hebel ayaa waxay soo gaareen wadan hebel. diplomacy hadaba waa diblomaasiyad. Soomaaliyan wuxuu noqonayaa diblomaasiyad waa hab nabadeed oo lagu sameeyo xiriirka dalalka ka dhaxeeya ayaa waxa la yiraahdaa diblomaasiyad. haddii aynu marka English waxa ay ku micnayaan fiirnana waxay yiraahdaan managing international relations through decision and peace. waa yani hab nabadeed oo lagu maareeyo xiriirada dalalka ka dhaxeeya iyadoo markaasi yani si wanaagsan wadamada ay wada dhaqmayaan. diplomacy waa diblomaasiyad. hal maraan saaxiib yaal idin dulmar ereyada waa democracy oo dimuqraadiyada, election oo doorasho ah, government oo dawlada, opposition oo mucaarada, parliament oo baarlamaan ah, policy oo siyaasada, corruption oo markaasi ah musuqmaasuq, constitution oo ah dastuur, campaign oo ah ole iyo diplomacy oo markaasi ah diblomaasiyad. saaxiibayaal waxaan rajeynayaa inaad cashirkan wax badan ka faa'iideen. subscribe saar, like ka sii tag, sidoo kale tana comment hoosta ku soo qor ereyada hore u taqaanay iyo kuwa kugu cusub. jaw intaan ku kulmayno muuqaalka xiga waxaan idin leeyahay have a nice day.